قنايا ووحون عن دعين الصبح يوم تاجن وحقات التلبية طبعا كابلد وتاجن هاي horta waxyaabo badan baa taagan wixii gift lagu keeno dhan wuu taagnaan warma taagnaanaya wixii gift lagu mar baa lagu siinaya kan waa waxaan dhaxayn maya ku jeclahay xitaa ma dhacayso deegaan ku jeclahay ma 12 bilood waa for good sama okay maxaad isku furaysaa way su'aasha garameyday ana dib kaaga sheegay waxaan isku furan lahaa horta qofka marka aad oo dareen dhaba isu kin hayo oo laba qof oo imika gift baad ugu isii soo dhaxgelisay iyo waxaan dhacaynin taa maskaxda waa baarbaaranaya aad bay kugu adkaatay anaa ku sheegi doona laakiin bedelkeeda kaaga ma tagaye maxaad isku furanaysaa ma heesiro macaan oo jacayl qaadaysaa maxaad qaadaysaa way heeska xamar bilan qaaday isku furanaya ee taageerayaasha waa tahay okay xurmiya gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad hidiya dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayay xabiibitaan doonayay markaan xubiyay ku tabo jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay aye reen xasilay waan isfurato si wanaagsan baa isku furatay laakiin su'aasha anaan ku iga daba geebal su'aasha waan la wada daaman life la hayay iska soo si fiican baa kaaga su'aasha kaaga dikini laakiin qaar kale aan rabay inaan lacag ka qaato si gaar ah hada sheegtay waa life u socotaa iska socdaa gindhima waa tahay dabcan halkan nagala socotaan waa barnaamijka English show dabcan TV-ga artin magaalada Nairobi caawana xidigaha ee reer Jigjiga ayaa noogu martiya bariyahan anigoo raba inaan Jigjiga tago ayuun baa xidigihii Jigjiga ma sha Allah saas imaadeen saas isugu soo dibadda Xariir iyo Faisal Munir iyo Bashir Jawi iyo Bashir Jawi iga baxsaday isagoo iga baxsaday xidigihii Jigjiga marka caawada Jigjiga bay naga u sareynaa marka Jabuuti halkaan watiga xaraasan ku soo ashiin ay ku dhimantay ka saco ma saashi taas sharciga ka yaala saashana madda isku furtay inaan ku sheego sharciga ka yaala aan dhigta soo dhaweeyay dhagta waan ku soo dhaweynaya dib baan rabaa inaan kuugu dhigo oo dabcan waxaan jecelahay taageerayaasha hadina halkan ay telefoonada soo lab dhigin sidaan horta maxaan neceb tahay anigu waxaan necbahay beenta necbahay waxaan kaloo necbahay qofka diraalaha labada qof isku dira qof ku sheekeeya oo ka sheekeeya necba adduunka ka san wax kale waa laga sheekeysan karaa wiliga meel ma gaarayo qofka xaasidka ana waa necba caloosha timaha kule maxaad jeceshahay markaa waxaan jeclahay qofka wanaaga wadan jeclahay waxaan jeclahay nabadan jeclahay waxaan jeclahay walaaltinimadan jeclahay waxaan jeclahay wixii wanaag oo dhan baan jeclahay okay dindin wada dindin waa tahay kolley dabcan waxaan jecelahay bal laba iyo dhowr qof oo taageerayaashada inaad jaalisi sidoo si fiican oo dawriyeednimo wariyaad ku fiican tahay bal inooga qabatay telefoonada haye dhac alo salaamu calaykum soo dhawaada barnaamijkaad ku jirtaa si toos ah uu ka go'ay qofka daawadayaasha marka waxaad u sheegtaa inaad TV-ga iska gaabsaan fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad TV-ga iska gaabisaan markaan soo wicisaan aniga idinka qabanay telefoon gacanta ku haya xaalku waa shib iska dhe haye halo assalaamu calaykum wa alaykum salaam rahmatullah soo dhaw walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso walaal Sumaya oo joogto Karasa ma sha Allah soo dhaw Sumaya oo ku salaamay waan ka qaaday walaal magacaaga jiro soo dhawow barnaamijka ku jirtaa fanaanada iglanaba fanaanad baa lagu sheegay waan ka qaadnay walaal macaan aad baan ku salaameynaa insha Allah waan jecelnahay inaad gaarsiimaad insha Allah walaal gaarisa waan iman reer gaarisan igu salaan waa idin iman doonaa insha Allah walaal macaan insha Allah ayo waa nolol insha Allah hayo walaal ka fanaanad iglan khadka ku xiga halo salaamu calaykum عليكم السلام سودو ولا مقعاقة وإلهان وكسر نيروبي
gaar ahaan Parkland isku meel aan joognay City Park wala soo dhow walaal soo dhow ilahan waan ku maqlaa oo suldaan wax kula hadlaya England boyna salaam Suldaan Serar waa kaa qaadna walaal macaan soo dhowow waxaan codsan lahaa heestii yarta raadiya raadiya waayahay walaal insha allah yarta raadiya waa la soo dayni haye ka waraysan telefoonada u qabanaya waa soo wariye kuma soo baxaya halo asalaamu calaykum soo dhowow walaal waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh maxaa walaal waa ku jirtaa barnaamijka magacaaga Mustafa Ramo waayahay soo dhowow walaal waan ku salaamaya aad baan kaaga qaada walaal macaan waxaan idin wadaynaa heesta yarta raadiya yarta raadiya waayahay insha allah iyadana waa soo wadnaa yarta raadiya qadka kusoo jirtaa waa dhowr qof yarta raadiya wow caawa dee adiga taageerayaashaadii waa la yaaban midda kale waan isku fasaxayo aniga de in badan baa soo horfadhiyay suldaano soo maaha oo aan lahaa suldaan aan lahaa aygu lahay noo keen midda kale de anigu waxaan dena iska kaa keenay haye gurigaa laigu soo buriyay waxaa haddaan suldaan keenin sharfi dhimati baa la yidhi saa soo maaha marka waa anigaas de caawa dadkii caydhin lahaana waxaan jecelahay inaan maxaa la idhahdaa ii sheeg aan iyagana bal dhowr qof aan rabaa inaan jaanis siiyo hallow qofkan aan rabaa hallow asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal caawa suldaan baa adduunka kala hagayay markaa maxaad qofkii u dambeeyaan jaaniska siinaya tahay walaal igu dhig Suldaan aan salaam marka si fiican buu kuu waan maqlayaa ku maqlaa walaal macaan aad baan kuu maqlaa Suldaan waan ku salaamo waxa rabo ka soo wacayso jeer waa soo dhowo walaal macaan ree wajeer igu salaan dhammaantood dhamaan aan kugu salaamaya balse waxaan jeclaan lahaa adigoo dhugu haq socod inaad noo dhimaato insha allah walaal hadduu ilaah raali ka noqdo waa idiin iman doonaa walaal maasha allah macaan. suldaano qaybihii dambe ee barnaamijka dabcan ayaynu soo gaadhnay iyo heesana waa inoo dhiman yihiin bal su-aalahaaga ugu dambeeyaan jecelahay inagoo heesta aynu barnaamijka xidhaynana laakiin su-aal baan kaa sugayay waa kuu soo wadaay waan kugu khatimayaa horta aad bay u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan maamulayaasha tv-ga qiimaha badan r t n barnaamijkaaga quruxda badan ee England show isagana waa bogaadinaynaa waa barnaamij aad u qurux badan waa barnaamij si habaysan oo qiimo badan loo soo diyaarshay sharaf bayna ii tahay inaan idiin imaado oo waqti idin la qaato waaw maasha allah annagana sharaf weyn iyo noo tahay karaama inoo tahay waxaan kuleeyahay mar kale barnaamijka England show inaad marti noogu tahay tv-ga RTN magaalada Nairobi anagana madaxa waxaan ku yiri waa kuu taaganaa sultaankayga tahay madaxweynahayga tahay fanaankayga xidigayga tahay oo reejigreejig anaaba caawa ugu sareynaba marka heesaha aynu heestan ku soo xidhayna horta maxay ahayd heesta isii baa la yidhahdaa gacan isii sideedaba maxay odhanaysay heesku waxaa qoray abwaan anaad halkan oga salaamayo aamin samadoon oo aad iyo aad ah nin maskaxdiisu aad u barakaysan tahay ayaa sameeyey ereyada qiimaha badan laxankana isku dadayey oo ku tuuray muusigu waa haynoka adlabajo salaam biyaalow aad ba halkan isagan oga salaamay maxay odhanayeen erayadeedu erayadeedu waxaa ka mid ah kolay erayadoodu midba mid kama dhacaan erayadeedu waxaan leenahay kuleylkaa lagaga bogto kuleylka waxaan ku haba sheega shibiska dheh waa tahay dabcan barnaamijka England show ee caawa sida tooska nogala socoteen tv-ga RTN xaruntiisa magaalada Nairobi ee uu halkana martida ugu hayo soo firfidhay caawa isagii taageerayaashiisa loo kala baxay Suldaan Serar Guhaad jigjiga oo aan islahayn halkan iman caawa reer jigjiga afka jigjiga oo ku hadlaya okay sax maxaad igu dartay Suldaan Serar Guhaad jigjiga awgii aabihi jigjiga ka dhigtay maxaan sameeyay jigjiga oo afka jigjiga caawa ku hadlaysaa okay waa tahay barnaamijkan waxaan rabaa inaan fursadan aan kaga qayb qaato oo dad aad u qiimo badan ka salaamo waxaan salaamayaa hooyadayda oon jeclahay oo heerkan isoo gaarsiisay isoo korisay anna eedaday waa salaamayaa maasha allah okay hooyaday qiimo badan waan salaamayaa ilaahay raali ka noqdaan leeyahay aabahay Serar Guhaad waan salaamayaa dhammaan familkayga walaaladayda oo isku duuban waan salaamayaa kooxahayga oo isku duuban waan salaamayaa reer jigjiga
iyo reer DDSI oo dhan dhammaan Soomaali Halkan weyn kasii oo salaamaysa. dhan reer Nairobi oo dhan dhammaan aad baan u wada salaamaya kursigana salaam uga diraysaa fanaaniinta Soomaalida isku duuban waa salaamaya sidaas inoogu dheh dad aad u qiimo badan waxaan kaloo salaamayaa walaalkay Cabdi Manaan waxaan salaamayaa walaalkay Sharaf waxaan salaamayaa walaalkay Farxaan Muniir dhammaan asxaabta reer Nairobi oo dhan waan salaamayaa fanaaniinta reer Nairobi isku duuban ma sha Allah waxaan salaam qiimo badan ka sii laabo halkan ka salaamay marwadayda xaaskayga aan jeclahay marwe Amuun Cabdi Ismaaciil oo la hal raalaha ka noqdo ما شاء الله والله انت ماشي وسلامينا انا اسكو دو بهدا ارتي oo dhan baa waxaan ku yiri amuun wada salaamayna heestan rabaa waaya inaan barnaamijka xigeenteena kulmayno anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa heesta hadaynu raacinaya halkaas aynu ka helaynaaye adaa cusburka iyo hibaaqa الله اسكو daray waxaan mahad celinayaa Maslax Abubakar oo qaybta farsamada inoo joogay dabcan iyo Cabdi Raxmaan oo isagana muuqaalada quruxda badan kala hagaya anaga iyo Suldaan oo isku duuban iyo bahda artay oo dhan intaynu kulmayno nabadgelyo iyo heestaas عصبركيا هواقا عرفك كودقون حريدا سيدي وبحين بعينا هذا كعسو من بيركيسي قعاني سيسي على قرابي سيسي قعاني سي قرابي سي هذا عصبركيا هواقا عرفك كودقون حريدا سيدي وبحين بعينا هذا كعسو من بيركيسي قعاني سيسي على قرابي سيسي قعاني سي قرابي سي هذا عرف يا ذا وضنها عندك قبصة كوين سيدي عسر لي قلبي ذا وعدنا وين كيسي قعاني سيسي على قرابي سيسي قرابي سي قعاني سي هذا عرف يا ذا وضنها عندك قبصة كوين سيدي عسر لي قلبي ذا وعدنا وين كيسي قرابي سيسي على قعاني سيسي قرابي سي قعاني سي هذا عشر ذا وناقا سيدي علماء إبراي عويس كان اسبرنا شعير كانوا نعورته اللي يعوري بلا يسي قعاني سيسي على قرابي سيسي قعاني سي قرابي سي هذا عشر ذا وناقا سيدي علماء إبراي عويس كان اسبرنا شعيل كانوا نعورته اللي يعوري بلا يسي قرابي سيسي على قعاني